Hello, dear learners. Welcome again. Our today's lesson, inshallah, waxaan rabnaa inaan barano alphabetical order. Waxaan ugu talagalay ardayda asaaska base-ka ah ayaan ugu talagalay. Fadlan marka waxaad muuqaalka channelka aad kala socotiin waxaa weeye Afla Academy. I'm Teacher Masalah. So today, inshallah, waxaan diirda saara doonaa haddii la yiraahdo English base oo ah beginnerka ugu talagalay. Marka channelka dadka cusub ee subscribe saaro hadana joogteena like share and comment waa dhankaaga dear learners inshallah. sida la socotiinba ardayda waxaa iska leh ardayda beginnerka ah ama ardayda oo asaaska ah oo weligood aan arkin Englishku meesha ka bilowdo. Marka haddii aad tahay qof weligiis aan arkin Englishku, fadlan muuqaalkan kusoo dhawow. Casharkani adiga ayuu gaar ku yahay. Fadlan ku raaxayso inshallah. Meesha aad kala socotiin waa Aflah Academy. Aflah Academy. meesha aad kala socotiin waxaa weeye waa Aflah Academy ayaad kala socotaa inshallah biidhnillahi tacaala. Marka saan oran ku soo aragnayba maanta waxaan baran doonaa alphabeticals. maanta waxaan baran doonaa inshallah biidhnillahi tacaala alphabetical kani aan baran doono maantadani inshallah haddii la yiraahdo waxaan ku dhex arki doonaa meeqa ayay ku kooban yihiin, sena loo kala qaadaa intaan ay arki doonaa inshallah biidhnillahi tacaala. Marka dear learners isla socod wanaagsan. markaan ku jirno alphabeticalku waxaan baran doonaa based letters. waxaa loo yaqaano based letters. The based letters inshallah waxaan ku arki doonaa waxyaabo ka mid ah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So harfahan ayaa waxaa la yiraahdaa base letters. waa inta uu ku kooban yahay Englishku intaan ay ku kooban yahay. intaan baa la kala saari doonaa. haddana waxaa loo kala saari doonaa shaqal iyo shibane, consonants and vowels waxa la yiraahdo. sidoo kale waxaa loo kala qaadi doonaa capital letters and small letters. So for the base letters that here we have waxaan dhahnay waxaa ka mid ah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, P, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These are called the base letters. While the initial letters, sidoo kale we can say initial. The initial letters are dhihi karnaa waa harfaha aasaaska weeye. harfaha aasaas la dhihi karaa sidoo kaleeto. haddana meeqa ayay ku kooban yihiin marka total number meeqa waaye tir ahaan meeqay gaarayaan. let's count now. total kooda
so below this one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Then Gabi, there are 26 letters. 26 letters. Yeah, 26 letters. Labaatan iyo lix xaraf weeye. Labaatan iyo lixdan xaraf ayay ku kooban yihiin English oo dhan meel waliba aad ku aragtid. After that marka see loo kala saaraa. Marka intaan gaarin sida loo kala saaro waxay u kala baxaan waxa la yiraahdo capital letters and small letters. Small letters. Capital letters and small letters. Then the capital letters and small letters waxaa weeye xarfaha yaryar iyo xarfaha waaweyn waaye. xarfaha yaryar iyo xarfaha waxaa kala yidhahdaa xarfaha waaweyn. Yes, xarfaha yaryar iyo xarfaha waaweyn ayaa la kala yidhahdaa. Capital letters waxaa weeye xarfaha waaweyn waaye and small letters sidoo kale waxaa la yidhahdaa xarfaha yaryar. So say u kala baxaan marka. We also need inaan ogaano qaabka ay u qormayaan. It's very important. Qaabka ay u qormayaan mar waliba waa very important. aad bay muhiim u tahay marka. Then hapa we have a kuwan aad arkaysiin now waxay yihiin xarfo waaweyn ayaga u baa loo bedelaya xarfo yaryar marka. Let's write. Yeah, we have A. Markay tan saan u qoranto we need to be very clear. Tan kale tan saan baad dhahaysaa alafu hoosaad ka jare. That is A. Now this one waxaan dhahanaa marka A capital letter. Tan sidoo kale waxaan dhahanaa A small letter. And then here we have B capital letter. Then ayadoo yar halkaan ka jaraysa. Then you say like this. Ama you can also do like this. Then here we have B capital letter, B small letter. Also, waad iska reebi kartaa halahan. You can just make it very clear if you want. If you want, you can also do like this and also make it. So here we have B capital letter, B small letter. And then we have a C capital letter and a C small letter. You know, this one is a big. This one is big, the other one is small. Then aliyara ay weyn tahay, midan laakiin way ka sii yar tahay sooma. Then we say B capital letter, B small letter, C capital letter, C small letter. And then we have here D capital letter. This one is D capital letter. And then mid yar hoos baad ka qabanaysa ala kursana u jare. Then fartan waa muhiim inay muuqato because it shows you that this area ama this letter is a small letter. Waxay ku tusaysaa inay tahay small letter. Aha. D, A, B, C, D, E. Then we write it E like this. Should be very big. And then these lines also should be equal. Halka inay ahaadaan ku siman. Hadday kala dheer yihiin, we cannot say, ma dhihi karno, this is E capital letter. It must be same. Waa inay ahaataa mid isku mid ah. Alaabta markaad jarayso, mid yar markaad u qorayso saana dhehaysaa, alaabta waa soo jaray. This what? E small letter. E capital letter, E small letter. Haye, maxaa ku xigay marka? F capital letter. F saana u qoraysaa kooda rato, and then waa soo jaray. Mid kaleeto should be also very clear. You see this? Waxaan rabaa aygana inay isku mid ahaadaan baan rabaa. Mid yar markaad u qorayso marka waa inaad ka qabato hoos. Alaabku tirada like this. Yes, very clear. Because waxaa jirto markii la isticmaalayo in lines. Laymanku markii la isticmaalayo waxaa jirto xarfo kor aado iyo xarfo hoos aado. So sidaas un bay ku kala duwan yihiin. Now this F waxaa weeye inta katika kala baray aadaysa laakiin this F waxay ka mid tahay kuwa hoos soo aadayo ayay ka mid tahay weeye marka. And then from there now here we have F capital letter, L small letter. Maxaa ku yiri? F maxaa ku xigo? G soma. Let's have G here. This is G. G intaad ka jaraysa saanaad u qoray.
that is G capital letter. And then already you have the G capital letter. G sign وعلامة tan نعم بالأخرى that is G capital letter. alafu markaad rabto inaad qorto mid yar anta ka qabanay marka you just cut it here alafu hoos u soo dhigay this is G small letter. Then here we have G capital letter and G small letter. G maxaa ku xigo H sana u qoraysa and then the other one it goes like this come here. So H markay san ay tahay and then mid yar soo qabo marka intaad ka qabanaysa then you say like this that is H small letter. H I kama I marka I imaan hada I sana dhaysa and then here marka san tirado kor hoos ka jara and then tan yar ayadana hoos ay qabanaya marka that is I G H I maxaa ku xigo J inta ka qabanay kood hore and then waa soo qabanay sana dhexe that is J. Okay tan adiga weyn waa marka aadno ayadoo yar marka waxaan dhahaynaa halkan baan ka qabanaynaa alaafo sana dhehna ayadana dhinacan ka siinaa marka waxay ka mid tahay harfaha hoos aado ayay ka mid tahay weeye haye maxaa ku xiga marka J K ku xigtimo K sana dhacna marka K capital letter it is like this is K capital letter ayadoo yar aan imaana marka intaan ka qabanaynaa dan sana dhehna bis that is K capital letter K small letter. Haya maxaa ku xiga marka K L ku xigtimo L sana dhebis iska jara that is L capital letter ayadoo yar maxaan leeyahay marka just say like this that is L small letter L capital letter L small letter. Okay L maxaa ku xigo M ku xigto let's come to M sana oo jara this is M capital letter. Haya M ayadoo weyn waatan marka waxaan rabnaa inaan aragno ayadoo yar soma sana dhehna marka that is M small letter ana ku xigtimo anta ka jara koodar sana oo jara just do like this is M capital letter and then ayadoo weyn waaye ayadoo yarna sana dhehna marka this is M small letter yes N small letter. Okay maxaa ku xiga marka O intaan ka qabanayna that is O capital letter ayadoo yarna waatan marka O small letter. Okay O maxaa ku xigo P soma P aan dhehna just intaan ka qabanayna this one P P capital letter ayadoo yarna waatan hoos baad ka qabanaysa ayadana hoosteeda dhigay that's B capital letter. Okay B maxaa ku xigo Q alafu Q sana oo jara kood hore alafu tag inta ka jara that is Q capital letter ayadoo yarna san baa loo qorayaa intaad ka qabanaysa alafu sana oo jara that is Q small letter. In some cases most of the people mention they ka sii jarayaan intay ka jarayaan dadka qaarkii laakiin this is the best one. So Q maxaa ku xigo R soma R intaad ka jara you say like this ka ayadoo yar oo imaan marka meeshan ka qabo alafu sana dhaysa that is R small letter. So that is what R small letter. Okay let's come on R S song S meeshan ka qabo this is S ayadoo weyn weeye ayadoo yarna waatan shahid san baa loo qoraa ayadoo weyn iyo ayadoo yar waay S maxaa ku xigo T baa ku xigta Allahu akbar T aan fiirino T waatan J amal waa laakiin ayadoo waa istaajin lama jaraa ayadoo T waatan ayadoo yar u imaano marka san baan dhahaynaa sana u jirayna marka that is waxaa la yiraahdaa S capital letter S small letter T capital letter T small letter way soma T maxaa ku xigo U baa ku xigto U sana dhahaynaa marka you see this is U capital letter ayadoo capital letter laakiin markay noqoto small letter should be different waa inay noqotaa mid ka duwan sana dhahayna marka ayadana maxaan siinayna fartan baan siinayna ayadana fartaas waxay noo cadeynaysaa marka inay tahay small letter inay tahay noo cadeynaysaa T U maxaa ku xigo D baa ku xigtay D sana leena ayadana D ayadoo weyn waatan sheekh. Okay ayadoo yar marka waxay noqonaysaa D yar oo san camal ay noqonaysaa laakiin lama rabo inay noqoto R amal inay noqoto lama rabo that's B waaye
Okay, W أيضا وين عم كيرنا هنا W. Let's look W. This is W like M. M هذه صار ده هاي أيضا كرة عادية. That is W أيضا وين W يرواتان أيضا like M تكرر عادية بس. That is W. W معكو حلو X معكو حلو X عم كيرنا مرة سفينا عم كيرنا X تيسكو بديشة عم كيرنا مرة X كود رسام بانده هنا X ير سنة لقرا وين أنت كقوانا يساعدنا then you see that this y capital تسام بالقرا يا أيضا ير مرة أنت كقوانا يسا then وصل دقيق then the last one حاويه z capital أيضا وين z small أيضا ير سنة بالقرا أيضا مرة guys عشان كده أنت أنا أقول كومنا وحاحبه إن شاء الله alphabetical order سديلا جاهو فضلا please subscribe تسارو سيني شرقري مغلقنا